Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinayaa qiso aad u xiiso badan. Qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay faa'iidada ay leedahay inaad badiso istighfaarta iyo sidoo kale kelimada laa xawla walaa quwwata illaa billaah. Balse intaan u gudagalin ka hor haddii aad ku cusub tahay jalka maalmaha, fadlan subscribe dheh, gamaylka riix si ay ku soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. Qisadan ayaa waxay ku dhacday haweeney maskiina oo haysata carruur fara badan, isla markaana ninkeedii oo ka dhintay. Haweeneydan ayaa waxay ku noolayd duruuf adag iyo faqri aad u daran. Markii adkaysan weysay noloshiina ku adkaatay, ayaa waxay go'aansatay inay ilmaheeda u soo qaraabato. Waxay timid masjid ku yaala xaafadeeda. Markaasii waxay bilowday dadka inay u bandhigayso duruufteeda. Haweeneydan ayaa waxay imaan jirtay maalinka jimcaha oo kaliya, ayadoona waqti u haysanin inay carruurteeda ka soo tagto, balse waxay sameyn jirtay dariskeeda ayaa waxay ku dhigi jirtay carruurta isii haaya si ugu soo qaraabato. Maalinka jimcaha markay timaado ayay dadka u bandhigi jirtay duruufteeda. Markaasaa dadka lacag u soo aruurin jireen, ayagoona markaa isugu soo dadaray xoogaa lacaga. Dhowr jimca markii loo aruuriyey ayaa dadkii waxay bilaabeen maalinkii dambe inay ka kala tagayaan meesha lagu cidleynayo. Aad ayay u murugootay, waxayna u tagtay imaamkii masjidka. Markaasay waxay ku tiri soomateeda imaamka iyo khadiibka masjidkan. Wuxuu yidhi haa. Waxay tiri waxaan ahay haweeney noocaasa oo duruuf adag ku jirto, carruurna haysato, qof kalena aysan u joogin. Marka dadkii waxay bilaabeen inay iga kala tegayaan, duruufteedana ay igu fiirsanayaan. Imaamkii ayaa wuxuu ku yidhi haweeneydii, anaga ayaad waxna su'aalatay oo bani aadan ayaa wax weydiisatay. Haddii aad Allah subxaanahu wa tacaala u bandhiga lahayd arrinkaaga, waxaa hubaala inuu wax ka bedeli lahaa, meel fududna wax kaa sii lahaa. Haweeneydii ayaa ninkii ku tiri, anigu waxaan ahay qof wanaagsan, waajibaadka Ilaahay saaran waan gutaa. Imaamkii ayaa ku yidhi, waad wanaagsan tahay, balse waxaan kugula talin lahaa inaad sunnooyinka badiso, istighfaartana aad dhaqan iyo caado ka dhigato, sidoo kale inaad ku celceliso laa xawla walaa quwwata illaa billaah. Haweeneydii waa iska tagtay, waxayna aaday gurigeedii. Laga bilaabo maalinka jimcada waxay bilowday ayadii carruurteedaba inay istighfaartii badinayaan, kelimada laa xawla walaa quwwata illaa billaah ayna ku celcelinayaan. Markii la gaaray jimcihii kale, haweeneydii masjidka ma aysan imaan. Imaamkii waa uu dareemay inay maqan tahay. Waa uu sugay jimcadii kale, way imaan weysay. Jimcadii saddexaad haddana imaan weysay. Tii afaraad ayuu wuxuu yidhi imaamkii, waa inaan soo ogaadaa xaaladda haweeneydan iyo wax iska bedelay. Kadib haweeneydii ayuu soo raadiyey, wuxuuna yimid xaafadeeda. Markaasuu dadkii weydiiyey, waxay ku yidhaahdeen haweeneydii waa i guurtay. Wuxuu yidhi haweeneydan qof faqiira ayay ahayd oo duruufaysan, ee sidee ku guurtay bal ii sheega. Waxay ku yidhaahdeen sida aad adigu kula talisaba, haweeneydan laga bilaabo maalinka waxay bilowday istighfaar iyo inay ku celcelinayso laa xawla walaa quwwata illaa billaah, ayada iyo carruurteedaba. Waxaa u yimid wiil ay ilma adeer ahaayeen, asigana ka haystay. Imaamkii wuxuu raadiyey wiilkan gabadhan wade, kaasoo taleefankiisa ayuu helay. waa uu wareystay xaaladeeda. Kaasoo wuxuu ku yiri niyahow, gabadhani anigu hore uma aqaanin, balse waxaa dhacday habeenada kamid ah aniga oo jiifo ayaa hurdada lagu toosiyay. Markaasaa waxaa lagu yiri waxaad u tagtaa haweeneydaas oo carruurta agoonta haysato, waxaadna wax ka siisaa xoolaha aad haysato iyo maalka Ilaahay ku siiyay. Wuxuu yiri waan soo argagaxay. Markaasaa waxaan u tagay hooyaday iyo walaalahay. Xaaladeeda ayaan weydiiyay gabadhan. Waxay igu yiraahdeen gabadhan waa in adeerta, waana qof maskiina oo xaalad adag ku nool, ninkeedii ayaa ka dhintay, duruuf adag ay ku jirtaa. Kaasaan waxaan ku yiri hooyaday, hooy waxaan rabaa inaan alaab u qaado iyo raashin aan u tagno gabadhan gurigeeda. Sidii ayaan ku soo qadnay raashin. Markii aan u imaanay ayaan siinay raashinkii. Kaasaan wareysan xaaladeeda. Waxay noo sheegtay xaaladii ku jirto. Markaasay waxay tiri Ilaahay ayaan baryaa, waxaana ka baryaa in aniga carruurteedaba nolosheena wax ka bedelo. Wiilkii oo ka soo tagay. Markii ay gaariga soo raaceen ayaa hooyadii waxay ku tiri wiilkayga, haddii aad gabadhan guursan lahayd way fiicnaan lahayd, maxaa yeelay gabadhani waa gabar aad u fiican, waa gabar cibaado badan, sida arkaysana waa gabar yar oo way qurxan tahay. Marka haddii aad taladeeda yeelayso waxaan kugula tali lahaa inaad guursato. Wiilkii ayaa ku yiri hooyadii, hooyo hadda inoo geey ee waxaad ii weydiisaa inay guur diyaar u tahay, waan guursanaa. Sidii ayay ugu soo noqdeen. Markaasay hooyadii u bandhigtay, gabadhii sidii ayuu ku aqbashay.
wiilkii gabadhii iyo carruurtiiba uu kaxeeyey wuxuuna dejiyey guri aad u qurux badan. wiilkan ayaa wuxuu haystay hanti fara badan. gabadhiina waxay noqotay xaaskiisa. noloshii adkeedna way ka baxday, waxaana u bilaabatay safxo cusub iyo nolol cusub. waxay noqotay qof ku nool farxad iyo nolol wanaagsan. qisadan halkaas ayay ku eg tahay. qisadani waxaan ka faa'iidaynaa waxyaabo badan. waxaa xaqiiqo ah in badan oo naga mida inay dhibaato ku sugan yihiin, ama duruuf xun ay ku jiraan, ama nolosha ay ku adag tahay, ama guurkii oo ka raagay, ama carruur la'aan ay hayso. waxaa xaqiiqo ah haddii aan raacno waxay diintan amrayso, isla markaana aan nafteena ku tadbiiqino, in mustaqbalkeen isbedelayo, nolosheenana ay wanaagsananayso. sidaan ognahay diintu waxayna amartay inaan mar waliba la imaano waxyaabaha wanaagga ah, xumaantana ka tagno. culayskana haysto ayaa waxaa sabab ah dunuubta aan ka galna alla subxaana wa tacaala. haddii aan la imaano istikfaar badan, laa xawla walaa quwatan aan badino, waxaa la hubaa in nolosheen isbedeli doonto, culayskana hayana alla subxaana wa tacaala uu naga qaadi doono.